asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijka idin kula wadaagna sheekooyinka xiisaha badan ee bollywoodkii koonfur hindi maxaa ka cusub haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar muuqaalka noola gareeya waxaan ku bilaabanaa mar koowaad filimka dabcan weyn ee taager tree maalinkiisa koowaad ganacsiga rasmiga la fariisiyo lasoo daabacay shabakada box office hindi waxay ku xaqiijiyeen 99 karoor uu keenay taager tree labada maalmood ugu horeys kadib markii maalinkiisa labaad uu keenay 57 karoor lacagta nadiifka uu ka gaabiyey 60 karoor hadda waxay kaga dhigan tahay Salmaan Khan filimkiisa dabcan maalinkiisii koowaad wuxuu soo xaray axadda 42.25 karoor sida box office hindi shaaca ka qaaday iyo isniintii uu keenay 57 karoor waa 99.25 karoor lacagta afindiga oo kaliya markii la xisaabo haddii lagu daro lacagaha Tamil iyo Telugu ku dhawaad gaarayaan 2 karoor iyo bar markaas 100 karoor iyo ka tilaaba lacagta nadiifka ah dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan waxay leeyihiin box office hindi filimkan waxay ahayd periodkiisa in uu soo baxo kaleeta jimcadii jaanis fiican dhaafay shirkadda YRF sabdigii iyo jimcadii iyo axadii 100 karoor ku gaari lahay isniin iyo talaadana waxaa leeyahay dabcan ganacsi kale holac ayuu sameyn lahaa laakiin hadda filimkan culeysyo kala duwan haysta fasaxna wuu haystaa mana haysta sababta waxaa leeyahay diwaaliga feestadiisii hinduuga ahayd oo tafaafulkii afaarihii ma dhammaanin taas marka culeysku uu wan haysta laakiin taager tree waxbaa ka qaldan sababta ee bathaan oo kaleeto walking day waxaan wax ka badan uu keenaye gandaar oo kale walking day uu baashaalay sidoo kale jawan iska baday laakiin taager tree fasaxna waa haystaa mana haysto sida hadda muuqato oo khasaaradaas ay u dhexda kaga jiraa dhinaca kale haddii aan fiirino tiimka filimkan iskale dhankoodan waxay shaaca ka qaadeen taager tree inuu gaaray 100 karoor Salmaan Khan filimkiisana 2 days 100 karoor ku gaaray ka dhawaajiyeen oo qaybta afindiga oo kaliya 100 karoor soo xaray axadii waxay dhaheen 43 karoor isniintiina wuxuu keenay 58 karoor sidaas ku gaaray marka 100 karoor haddii lagu daro Tamil iyo Telugu waxay kaga dhigan tahay in filimkan uu marayo 103.25 karoor axadii 1 karoor bar uu keenay qaybta marka la joogo Tamil iyo Telugu isniintiina wuxuu keenay 1.25 karoor marka 2 days ayuu 100 karoor Salmaan Khan filimkiisa kaga tilaa markii la xisaabana nidaamka loo yaqaano producer figure sidoo kale Sallu filimkiisa markii aan fiirino lacagta uu soo xareeyay Grossman markii la canshuurta ka hor gudaha Hindiya hadda wuxuu soo xareeyay 124 karoor suuqyada caalamkana wuxuu ka keenay 155 karoor waa sida aan sheegnay ganacsigiisa guud World War Gross haatan filimkan 2 days wuxuu gaaray 180 karoor ayuu marayaa filimka lagu magacaabo Taager Tree marka sheekada ma dhow targetka waa 500 karoor lacagta nadiifka ah gudaha Hindiya 1,000 karoorna suuqyada caalamka Salmaan Khan san ku gaarsiinay anaga shaqo noo taal marka aniga iyo tiimka Salmaan Khan soo tashan doona wixii aan sameyn lahayn ayaa naga rabaa dhinaca kale aqyaarey waxaan soo qaadan karnaa filimka markii aan fiirino Taager Tree wuxuu noqonayaa Salmaan Khan filimkiisa 17 oo 100 karoor gaaro from Dabanga to Taager Tree ninkan 100 karoor waxba lama agtiisa waa tooraha ugu badan ee taariikhda fanka Hindiya darajadaas cid ku gaarta malahan sida aan ka warqabno filimkiisa ugu horeeyay wuxuu ahaa Dabanga oo darajadan ku gaaray 140 karoor ready ugu xigo asigana 120 karoor gaaray Bodyguard 148 karoor Ekta Taager 185 karoor meelahaas ka tilaabay Dabanga 2 asigana 150 karoor meelahaas uu gaaray Jai Ho 117 karoor ka tilaabay King wuxuu ahaa 214 karoor meelahaas Bajrangi Bhaijaan 315 karoor Prem Ratan Dambayo 190 xogaa karoor u ahay inkastoo tiimka filimkan iska leeyahay 210 karoor uu gaaray Suldaan asigana 300 karoor u ahay Tube-Light wuxuu soo xareeyay 117 karoor Taager Zinda wuxuu ahaa 339 karoor meelahaas 340 karoor Race Tree wuxuu soo xareeyay asigoo ever ahay sheekadiiska average ah wuxuu soo xareeyay 160 karoor ka tilaabay Bharat asigana 194 karoor inkastoo tiimka filimkan iska leeyahay 200 karoor gaarsiiyeen Dabanga Tree asigana 140 xogaa uu gaaray Kisika Bai Kisika Jam waa ka warqabna asigoo sheekadiisa ay liidato disaster filimka xataa flop noqday haddana Sallu 100 karoor filimkan gaarsiiyay Taager Tree haatan 2 days 100 karoor ku gaaray 99 box office hindi laakiin from today on buu gaaray halka producer figure markii la xisaabina 100 karoor uu gaaray dhinaca kale maanta oo talaada maxaa laga filanaa ganacsigii shalay uu sameeyay 10 ilaa 15 boqolkii uu ka hooseyn doona saa darteed marka Salmaan Khan filimkiisa waxay ka dhigan tahay ad maximum markuu dadaalo 50 karoor uu gaari doona marka Taager Tree waxba farqaha uga dhagan ma fahmi kari meeshaas marka waxaa muuqata filimkan labadii maalmo fasax ugu weynaa marba haddii targetkiisa uu 70 karoor filimkan hal maalin uu gaari waayo culays badan haysto inkastoo weli fasaxyo kale ay sii dhiman yihiin weekendiga labaad culays badan jira xadda nagu soo fool la kirikida jiro waa iska wararka waa badan yahay laakiin waa arki doonaa halkuu sal dhigan doono annada 150 karoor u badantay marka waa sida la qiyaasay 3 maalmood ugu horeys filimkan 150 karoor YRF khasaare ku jirtay niman yahow isniin waxay jimcadiin isaga toorta jimca iyo sabdi iyo axad 150 karoor ku gaari lahay isniin iyo marka la fiirsho iyo talaadana meeshaas waxaa ku dhuntay fursad oo filimkan 200 karoor 250 karoor ku gaari lahay shanta maalmood ugu horeysa hadii jimca la saaro lahaa marka business wise
YRF ayaa booliska filimkan qaldeen sidoo kale tan wuu iska sabeynaa marna waa kacaa marna hoos u dhaca sidaada muuqato hadiiba uu 60 karoor xitaa uu gaari waaye maalinkiisii isniinta ee maanta talaadana uu lacagtaas ka hooseynayo 50 karoor u badanta inuu keeni doono taageertari waxbaa salagle marka sheekada ilama quman laakiin waa tashanana dhib male reer Salmaan Khan si aan u tashan doonaa waa bounce bag aan sameynana waxbaa noo harsan yaan la quusan aqyaare waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybkee markii aan firino Thalabati Vijay filimkiisa Leo sidaas wuxuu u noqon taariikhda filimka Tamil Nadu ugu lacagta badan ee local market ka soo xaray Vijay marka cid ka daba hadli karta malahan asiga meesha ka taliyo 26 maalmood ku gaaray darajadan 213 karoor soo xaray lacagta gross money ee Tamil Nadu wuxuuna ka tilaabay filimkii Bunyan Selvan Part 1 oo 213 karoor soo xaray cimri ahaantiisa waliba hadda waxa uu raacday Leo ilaa iyo 5 lag meelaha uu raacday uu iska sii socon doona Jailer asigana wuxuu soo xaray 189 karoor bar waa filimka saddexaad ee Tamil Nadu ugu lacagta badan Fikram wuxuu soo xariyay 180 karoor bar Bahubali 2 wuxuu ka soo xariyay Malaysia's top 5 ka saa dhameystira 152 karoor Bahubali hadda meeqay qaadatay 2017 scoorkaas ilaa 2022 sanadka hore Fikram jibiye almost ay ka dhigantay marka 5 sano Tamil Nadu filimka ugu lacagta badan local wuxuu ahaa filim ajnabi ah oo Telugu laga leeyahay laakiin hadda ugu dambeyntii Fikram jibiye recordkaas then waxa ku xigsaday sida ka warqabno Bunyan Selvan Part 1 recordkiisa waa la jibin waay ugu dambeyntiina hadda scoorka waxaa la wareegay Thalabati Vijay iyo filimkiisa Leo sidoo kale tan Leo wuxuu noqday sanadkan 2023 Tamil Nadu filimkooda ugu lacagta badan World War Gross maadaama uu gaaray ilaa 210 karoor ganacsigiisa wuxuuna dhaafay filimkii Jailer oo 605 karoor ganacsigiisa soo xaray cimri ahaantiisa marka localki iyo suuqyada caalamka meel kasta oo Vijay 2023 reer Tamil asiga iskale awoodiisa ninkan banaanka ay taala marka hambalyan Thalabati Vijay iyo director Lukesh Konaraj oo filimkooda wacdaraha seer kastra dhigan ka sheekeynay waxaan kala soo qaadan karnaa qiyaarta qimada markii aan firna sheekooyinka la hadalay qaybka Ranbir Kapoor filimkiisa Animal wuxuu noqonaa taariikhda arkay filimkiisa waqtiga dheer waxaan waa waali 3 saac iyo 30 daqiiqo 3 saac iyo bar ayuu soconaa sida haatan shacab laga qaada la horgeeyay gudiga filimada Fafreban Sandeep Reddy Vanga markan waa soo waalataniyo sheekada wax ka jarjar 3 saac ta ka dhigay 3 saac iyo bar hadee filimka sheekadiisa xumaad waxaan isleeyahay kadib la waqti laga dhimi doona laakiin hadee sheekada fiicnaato wallahi waa adagtay 3 saac iyo bar iyo Modern World gaaneeto dhawaanahan waxa la filmo 3 saac gaarayeen waaba yartay waa laga caraa laakiin ninkan Ranbir Kapoor Sandeep Reddy Vanga go'aankan qaateen waxa la Ranbir Kapoor filimkiisa waqtiga dheer taariikh ahaan waa mashruuci ahay dabcan uu sameeyay muxuu magaciisa waa iloobe Rajniti oo uu sameeyay dabcan Barkash Raj sidoo kale tan Ajay Devgan iyo shakhsiyaad badan ee la sameeyay kaasa wuxuu soconay 3 saacadood laakiin hadda waxaaba ka tilaabay filimkan oo dabcan Animal ka tilaabay dhinaca kale Sandeep Reddy Vanga filimkiisana waxa uu waqti dheer Arjun Reddy oo asigana socod 3 saac iyo 2 daqiiqo marka Animal sida hadda shaac laga qaaday wuxuu soconaa waali waa 3 saac iyo bar inkastoo decision ugu dambeeyay arki doon laakiin sida hadda u badan tahay waxa la 3 saac iyo bar ay gudiga filimada Fafreban la horgeeyay shahaado ee certificate filimkan waa la siinaa sidoo kale tan mashruucan xisaab badan wuxuu soo bixi doonaa 1 December idinka ku soo celi marka bal commentigeena ka dhiibteen Animal uu socon doono 3 saacadood waa waali laakiin waxa sida filimka duumacaanada laga yaabo in daawadayaasha aqbalaan waxaan kala soo qaadan karnaa ciwaanada qaybka markii aan filino director Atli wuxuu sheegay kaftana uu arko ka dhawaajiyay Shaaruqan markii uu dhahay dabcan heeska lagu magacaabo Zinda Banda magaalada Jina ay ku duubno sidoo kale tan hadal haynta filimkan sare u qaadi kartaa wuxuu dhahay budget waxay u baahatay heeskaas 10 karoor isla markii Shaaruqan wuxuu dhahay lacagtana waa iga diyaar heeskana Jina aan ku duubno hadal haynta filimkan sare u qaadi kartaa waxaas dhahay Shaaruqan iyo ama kaftan ka tahay waxaan naga sidee ugu soo laabtay wuxuu dhahay Atli maxaa kugu dhacwaaba kula hadlay beesadana waa diyaare Zinda Banda heeskaas noo kala kici noo diyaari aan rudna la hadlay heeska uu soo diyaariyay adna director gare sidoo kale tan heeskan waxay dalay hees dabcan aad iyo aad u xiiso badan oo waa ka warqabnaa saameynta filimkan ee ku yeelata marka Zinda Banda waxay noqotay hees saameyn badan oo budget kaliya 10 karoor ku baxay Tamil Nadu lagu duubay tal badan ka qayb qaateen SRK marka qorshihiisa marketing ahaan heeskan ka rabe si fiican u gashay Zinda Banda sina ka warqabna waa heeska dabcan oo aazad ku xarakeenayo markuu soo baxo introduction song-ga loo sameynayo oo aad iyo aad music background aan caadi ah aysan lahayn marka filimkan Jawan ka warqabna all time black pass noqday ganacsigiisa 160 karoor gaare sanadkan filimku ugu lacagta badan Bollywoodka dibad iyo dal ah iskoor badan SRK uu sameeyay marka heeska saasay ku imaaday Atlina kaftan uu umilay laakiin SRK uu kaga dhabeeyay kadib markuu heeskan u bogay filimka lagu daro aqyaar sheekooyinkaas idinka dabageynayno ah waxyaabii ugu dambeeyay ee Bollywoodka la hadalhay taageer tiri oo culays badan saaran commentigeena ka dhiibta waxyaabaha kale soo kordhan waa inoo kulan dambe hadduu alla idmo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh